xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa ka warbixiyay safar oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku marayay dalka UK waxaana xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi ugu horeynba si weyn ugu mahadnaqay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan cariga Ingiriiska gaar ahaan jaaliyadda gobolka Togdheer isagoo intaasi ku daray gulihii uu ka gaaray safarkiisa ilaaba mahadle sigay mahad oo dhan usugnaatay dalka UK baan safar ku joogay waxaan shirar iyo kulamo la yeeshay jaaliyadda ama jaaliyadaha Somaliland ee UK si gaara jaaliyadda gobolka Togdheer marka hore waxaan u mahadnaqayaa oo iga mudan inaan u mahadnaqo oo ujeedada ugu weynaan u qabtay shirkaygan jirayd bay tahay mahadnaq aan u mahadnaqayo dadkii sharafta badnaa qiimaha badnaa ee jacaylka u qabaan dalkooda iyo gobolkooda ii soo dhaweeyey anoo runtii si guud ugu mahadnaqaya jaaliyadda hadday tahay London iyo hadday tahay Bristol iyo hadday tahay Cardiff iyo hadday tahay Birmingham waanu soo ballanay wixii ay igula ballanteen arrimaha ugu waaweyn ay igala hadasheen meel kastoo aan tago UK labada ugu waaweyn waxay madaarka Burco iyo wadada Wadweyne waxaan doonayaa inaan halkan idinka sheego saynu ku ballanay markii aan halkan imi waxa runtii aan nasiib u helay inaan la kulmo wasiirkii wasaaradda horumarinta iyo wadooyinka iyo gaadiidka mudane Cabdullaahi Abukar inaan la kulmay magaalada Burco kula kulmay markaan u sheegay fariintiinii aan u sheegay aan u gudbiyay gurbajooga in dhibaatada baahida ugu weyn iyo dhibaatada ay runtii ka cabanayaan ay tahay madaarka Burco wadada weyne waxa uu sheegay wadadii Wadweyne in la bilaabi doono 2020 November inuu la bilaabi doono wuxuu kaloo ii sheegay madaarka Burco in loo hayo lacag $5 milyan isagana sidii loo bilaabi lahaa 2020 la bilaabi doono dhismihiisii oo lagu bilaabi doono $5 milyan oo loo hayo madaarka Burco waxaase uu ii sheegay wasiirku inay ka badan tahay qarashka ku baxaya haddaba taas iyadoo jirto aan ogahay aan dhibaatada ka haysto madaarkii Hargeysa oo ka fog aad uga fog gobolka Togdheer iyo gobolada Bariga madaarka wasiirku wuxuu yiri waa la bilaabay Shimalay idinkuna haddii aad tiin qurbajoog gobolka Togdheer iyo gobolada Bariga iyo reer Somaliland inaa u diyaar garoobaan wixii idinkuna aqoon qaadan lahaydeen madaarka Burco inaa u diyaar garoobo marka la bilaabo madaarka waxaa runtii aan u mahadnaqayaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa Leila Cabdillaahi oo gabar muwaadinada oo in badan deegaanada gobolka Togdheer wax badan ka qabatay iminkana waxay ugu wareejisay magaalada Birmingham ambulance ay ugu talagashay maaragtay gobolka Togdheer marka anigoo og baahay in loo qabo waxaan runtii aan ka hawlgalay in ambulance iyo wixii loo soo heli karo magaalada loo soo helo waxaan kaloo isna u mahadnaqayaa ninka la aadan dheer ee la dandegan oo isaguna dawooyin runtii ii soo dhiibay oo iyaguna ay soo socdaan dawooyinkaas oo ugu talagalay dadka madaxa wax ka qaba dimirka oo iyagana insha Allah aan iyagana wareeg runtii ku leejin doona wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer labada muwaadin intii aan joogay dawooyinka iyo ambulanskaas ayaan gobolka u soo helay ballanqaadyo kale way jiraan oo aday qayb dhinaca sportiga iyo agab kale oo dhinaca waxbarashada oo iman doona insha Allah waxaan u rajeynayaa Somaliland guud ahaan midnimo in loo midoobo mashaariicda dalka ka jirta sidaan ku ballanay oo marba hal mashruuc la qabto agaasimaha Cabdi Kariim Balmar oo runtii aanu safar badan wada galay iyo safiirka UK cusub runtii waan u mahadnaqayaa xildhibaan Mubaarak Bidhi waxa uu intaasi raaciyay inay ka maamul ahaan soo dhaweynayaan cid kasta oo maal gashanaysa gobolkani Togdheer isagoo dhanka kalena xukuumadda madaxweyne Biixi ugu baaqay inuu fuliyo ballanqaadyadii ku qornaa buugga xisbiga kulmiye waxa runtii naga go'an naga hadanahay golaha deegaanka degmada Burco
inaanu qurbajoogga haddaad tihiin aanu diyaar u nahay inaanu runtii ku soo dhaweyno magaalada Burco ciddii maal gashanaysa ciddii ganacsi ka samaysanaysa iyo ciddii dhisanaysa inaanu wax walba u fududeyn doono horaan waanu sheegnay waanu idin fududeyn doonaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygii safarkaygii labada arrimood ee laga hadlay wuxuu ahaa madaarka iyo wadadoodina waxaan rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anigoo runtii intii uu joogay labadii sano wax badan uu ka qabtay dalka khaasatan gobolka Togdheer waxaan rajaynayaa inay ballanqaadadii ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.